waalid caruurta waxa ka celin kara dhaqamada xunxun boqolkiiba 40 marta inaad ogaato caruurta inay ku dhacaan dhaqamada xunxun maandooriye isdil gang inay bulli garayaan dadka dhammaan dhaqamada boqolkiiba 40 wax ka celin kara ma taqaana sida ay sheegayso mu'assasada la Child Developmental Institute tadawurka awlaada mu'assasada u qaabilsan daraasaadkeeda waxay leedahay open communication marka waalidka iyo awlaadu ay si daacadnimo u wada sheekaystaan ee ilmuhu uusan ka baqayn waalidku inuu fadeexeeyo inuu ku qayliyo inuu judge gareeyo ee wax walba ula imanayo boqolkiiba 40 ilmahaasi wuxuu ka badbaadaa inuu ku dhaco dhaqamada guracan waa kow lambar 2 waxay ilmaha dhaxal siisaa in resilience ay yeeshaan oo ah dhabar adayg inay fitankan iyo waxan jira dhabar adayg dulqaad u yeelan karaan oo iska xakameyn karaan lambar 3 waxa kor u kaca self esteemka awlaada oo ah awlaadu inay isla weynaadaan oo iskala weynaadaan inay cid kale bulli garayso oo iskala weynaadaan inay dhaqamo xunxun ku dhacaan oo iskala weynaadaan inay cid kale uga sheekeeyaan duruufahooda cid kaliya oo imanayaan waa waalidkooda weeyaan u fiirsa marka waa qadiyadii aan ku celcelinaynay ee quraanku uu ina baray ee ahayd awlaad riyadooda waalidkood kala hadlaysa iyo waalid riyadiisa awlaada kala hadlaya nabi yusuf wariyooday aabihi yaqoob la hadlay nabi ibraahim riyo ku arkay isagoo wiilkiisa ismaaciil gowracaya waa la sheekaystay open communication marka ilmuhu ay marka open communication ka wada hadalka toosan ay la yeeshaan waalidiintood boqolkiiba 40 waxay ka badbaadaan dhaqamada xunxun lambar 2 waxay yeeshaan resilience adkaysi ay ka adkaystaan inay ku dhacaan dhaqamada xunxun lambar 3na waxay yeeshaan higher self esteem oo ah inuu ilmuhu isla weynaado isla weynadii diintu diiday ma aha laakiin inuu garanayo shakhsiyadiisa inuu garanayo waalidkiisa inuu garanayo diintiisa meeshuu ka soo jeedo oo cid kale aanay dulsanin fadlan awlaada la sheekaysta qalbigoodana aan maal gashano allah awlaadina xifdiyo muuqaaladan waxaad kala socotaa waalid legacy oo channelka waalidiinta loo sameeyay fadlan subscribe dhaha lana share gareeya dadka. Assalaamu calaykum wa rahmatullah.